730 sano kadib waxaynu milicsanaynaa weeraradii dhanka cirka ay diyaaradii xabashidu ay ku qaadeen magaalada Boorama xeradii qaxootiga Dareemacaan iyo deegaano ka tirsan sanadkii 1984 bishii 31 dawladda Amxaarada ay waqtigaasi ayaa diyaaradihiisu weerar waxay ku soo qaadeen magaalada Boorama iyagoo ku burburiyay guryihii hoyga u ahaa shacabka dugsiyo hoose dhexe iyagoo u muuqday kuwa si gaar ah u bartilmaameedsanayay goobaha waxbarashada oo ay wax ku baranayeen ardaydaadoodu ay aad u yaryarayd waxay dhulka la simeen fasaladii ardaydu wax ku dhiganayeen goobahaasi waxa ka muuqanaya ardaydii ku jirtay fasalada oo iyaga iyo dhismayaasha ay ku jireen ba soo gaareen khasaare lixaad leh waxaana halkaas ku nafwaayay arday u badan caruur oo waxba galabsin iyo dhaawac tiro badan kuwaas oo sababsaday bambaanooyin iyo hub culus oo diyaaradii xabashidu ku garaaceen waxa daadsana oo banaayada ka muuqanayay boogaagtii qalimaantii kabayaashii iyo dhiigii ardaydaasi maatida ahayd kuwaasi oo ka dhashay duqaymihii xabashida hooyooyin ubadkoogii kaga tegay waxbarasho ayaa ugu soo laabtay ubad diyaarada lagu rusheeyay iyagoo ku sugan xaalad dhaawac iyo mid dhimasho aqooyahan maxamed ibraahim allaale wuxuu ka mid ahaa ardaydii waqtigaasi ku xaraysnaa dugsigii sare ee lagu magacaabi jiray Camuud wuxuu nooga waramayaa waqtigu bilaamay weeraradii diyaaradaha xabashida ee sanadkii 1984 iyo marxaladii uu isagu ku sugnaa waqtigaasi sidii ayay ahayd markii ay bilaameen weerarkii lagu qaaday diyaaradaha ay ku qaadeen gudaha magaalada Boorama waxay ahayd saddex bishii koowaad January maalin isniina markay saacadu ahayd 12 iyo 12 minute baahayd saa markaanu eegni inoo khudbadaynayeen soo waxay ka bilaabeen diyaaradu bartaabay ka soo bixin buurta awrdil la yiraahdo afar bay ahaayeen markaan aragnay subeer bayro dhiisigii ahaa annagu waan fadhinay ayaa wuxuu yiri waa diyaaradii markii la yiri waan filaynay buu yiri waa la kala yaacay ka bacdi duurku nala golo annaga naag caymaday markaan xagga dhaadhaca u baxnay iyaan subeero naag ordaya aragnay waan gugujinay maxaa qorihii loogu ridi waayay baan diyaaradda waa loogu ridi kan weydiini maxaad lahayd baad maad ogeyd adigii soo markaa buu yiri ma meela laga weeraro in dhibaatooyin loo geystay baan ogaa saa ogeed baan in argostan filayay buu yiri way waan soo kala yaacnay markaa diyaaradii u horeysay halka qaxootiga Dareemacaan oo halka dhinaca Faaraxyo shishadeeda ayay wax ku riday meesha walkii dambe waxa la yiri ari ayaa socday ka bacdi way soo socdo midaan cirkaabay waxay ku riday iskuulka elementary waxa jiray meel kale oo iskuulka inoo horteeday soo rashaysay waxa gantaalkii horeeyay waxay ku riday qaxootiga iyo Faaraxyo dhexdooda ari meesha socday ku riday oo horeynteen magaalada soo gaadhay kani waa muuqaal ah dadkii dhaawaca culus duqaymahaasi ka soo gaadheen wafdi hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenkii koowaad ee waqtigaasi Soomaaliya sareeyo good Maxamed Ali Samatar ahaana wasiirkii gaashaandhiga kana mid ahaa wasiirkii madaxtooyada gaashaan la sare Muuse Rabila God waxay u soo bixeen magaalada Boorama waxaana madaxweyne ku-xigeen Maxamed Ali Samatar uu khudbad u jeediyay dadweynihii reer Boorama
maxamed ibraahim allaale mar kale wuxuu ka sheekaynayaa sidii uu xaalku noqday kadib weerarkii diyaaradaha xabashidu ku qaadeen dugsiyadii ardaydu wax ku baranaysay iyo marxaladii jahwareerka ee shacabku wajaheen kabacdi halkan markay ku riday midna korba u baxday laba dushay moorayeen midna halkan meelaan iskuulkay wax ku riday iskuulka markaa 370 arday ayay ku dirtoo dhiigoodii iyo wixii iyo hilibkoodii mideeda kale halkan stationka hortiisana dadkii iyo bacadlaha oo ahaan jiray meeshan imika haruurlaha la yiraahdo bacadlaha dharku halkaas u ahaa taana way ku riday magaalada la jeeray marisay afar bay ahaayeen laakiin sidaan arkaynay laba wax riday halka iskuulka xawata ka aadan isaaqna way ku riday macallimiin bay ku leysay halkan macallimiin way ku leysay magaalada meydku uu tiro beelay dadku way isdaafayeen jahawareer iyo cabsi iyo argagax baa ku dhacay waayo markaad aragto waxaan arkayneen annagu waan soo yaacnin iyo orodkii halka qofkii u horeysay dhaawacnaa waxaan ku aragnay meesha tuurtaay biyaha hoosteeda ayuu naga hor yimid kii u horaaye dhiig leh dhaawacan in aragno xaaladii noo soo weerarkaasi kadib xaaladdu sidee weerarka markaan xaalad magaalada nimidnay magaaladu way qasnayd inaan iyo carruurtu way kala halaabay qof ooyo ilmihiisii raadinaya oday reerkii raadinaya oo gurigii ka waayay albaabaduna markay albaabadaas oo dhan way wada ruqeen ka ugu adkaa uu furmay oday raadinaya inankiisii ku ooyaya ku intuu dhaawacan yahay hilibkiisu googo'ayo haddana ordaya oo baxsanaya jahawareer dharkii bacadlahaasoo halkaa daadsan meydka oo daadsan dhaawiciyood ku xarbiyaya oo wax qaadabala oo dadka gurayayna way yaraayeen meesha dadkii xitaa ku daatay ee dhintay ee meesha waan wada garanayaa dad badan halkaa meydkoodu yaallay waan soo argagax nin walba qofkiisii buu raadinayay meesha ku ogaa dagaal 1978 markii Soomaaliya iyo Itoobiya isdagaaleen kadib dhowr sano kadib 1948 waxa keenay Boorama weerarka lagu soo qaaday Soomaaliya waxa weeyaan marka horta dagaalku 8 bilood buu socday dagaalkii 77kii 8 bilood buu socday ka bacdi markii la soo baxay jabhada abuurmay amxaaradu xiriyaha kama baqayn waa lagu duqayn jiray dhexda loo joogsan jiray dagaalka jabhadii baa jiray marka iyagu wax la yeelaba ama kolleyba diyaaradaha way naga adkaayeen oo gaalkacay rusheen baan maqli jiray waxay rusheen hargeysa marka lidka diyaaradana aad buu liitay xagga Soomaalida hargeysa saamiyaalaba la oran jiray marka diyaaradaha ay ku daadiyeen way jirtaa xabad ku dhacday meelaha harawa bariyo way ku dhacday la oran jama looma tagaynin marka had iyo jeer colaadii baa taagneyd lama heshiin meeshii la iska arkay baa la dilay uu socday mar alla markay jaanis helaan ama noo yar dhagmiyaan waliba inta xuduudda waxay ka jabsin dheer u sareey waxaan u jeedaa aagii bay noqotay marka had iyo jeer harka nagama qaadi jiro dadka Soomaaliyeed ayaa iyagu ah mid dhacdadani ugu suntan taariikh madow iyadoo ay tan u tahay mid lama ilaawaan ah